مسؤوليinta asxaabta mucaaradka ee gobolka Togdheer wadaniga u ciidaya maanta si adag uga hadlay xaaladda guud oo haatan dalku marayo iyo waliba wada hadallada ay qorsheynayso in dawladda Turkiga ay ku wada hadalsiiso madax dhaqameedka Soomaaliland iyo Soomaaliya taas ay maalmihii ugu dambeeyay qaadaadhigayeen warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyagoo uga digay dawladda Turkiga inay soo faragashato arrimaha Soomaaliland iyagoo arrimahaasi arrimo kale oo tiro badan ka hadlay waxay yiraahdeen hadlayna maanta oo dhageynayn badan oo soo dhacayay arrimaha Soomaaliland waliba arrimaha dibadda oo loo xilsaaray markastaynu maqlayno oday dhaqameedyo halkaas oo ay u eg tahay in Soomaaliland jiritaankeedii iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ay gabtay xilkeedii waxaan maalmahan maqlaynaa in oday dhaqameedyo loo xilsaarayo arrimaha wada hadalka Turkiga ka socday Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay halkaas oo bari hore ku kala dhaqaaqnay arrimana meel dhiganay dawladda Soomaaliland dawladdan imka Siilaanye kulmiye hadda bilaamantayna ay ugu furtay arrimaha imkana ay marayso in loo xilsaaro arrimaha ay galaan oday dhaqameedyo halkaas oo hoos u dhac weyn iyo dhabar jab weyn oo kaga imanayo Soomaaliland oo loo arkayaba Soomaaliland inay tahay meel qabiil deegaan qabiil kaliya degan yahay deegaan maamul qabiileeda oo lala hadalsiinayo dawlad maamul qabiileed oo ka duday hoos u dhac weyn ayaa ku yimid muraadiyadii iyo jiritaanka Soomaaliland halkankii dheeraay Soomaaliland soo martay iyo dhaqaalii badnaayna ka baxay iyo dhiigii soo daatayna halka uu maanta ku baaba'ayo waxa dhabar jab weyn inagu keenay waa furitaanka laynagu furay arrimaha oday dhaqameedyadu wax arrin bay inagu xilsaaran yihiin arrimaha gudaha iyo amniga ay u xilsaareen hadii ay wax ka qabanayaan uma xilsaarna arrimaha dibadda inay dawladda la hadlaan iyo in ay systemkii la soo marayay aan u qaybsanay dalka uu yaalay charterka dalka iyo xilalka iyo shaqooyinka in ay dhex galaan waxaan filayaa in dawladdan hadda jirta uu ka khaldan yahay uu ka ay jahwareereen shaqadii dalka ay ku jahwareereen waxaan leeyahay Soomaaliland way jiraysaa oday dhaqameedka iyo dadkan kale ee iyaguna dhinaca cararaya arrimaha dibadda waxaan leenahay ka joogsada dawlad been nahay say dawladaha dunida u shaqeynayna hayna arax jabinina waxaynu soo dagaalamayna intaas uu goonistaag buu ahaa waxayna meedeen u soo dhintay goonistaag buu ahaa hadii ay garan weeyday dawladda nimka joogta systemkii loo kala dambeynayay ee shaqooyinka ahaayeen inuu gartaan leenahay halka qodobkaas aan ka leeyahay waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo habaxsanaanta dawladda hoose iyo habla'aanteeda waxa jirta bariyahan dambe in wadooyinka magaalada baabuurta kala goosto oo dhabay wada xiran yihiin hawlina leeyahayna hawl baa ka socota hawl allaala hawl ay ka socotaana aan jirin inta ciid lagu rogay oo ciidii hareerahoodii taagantay baabuurtiina loo sii daayay wax laga qabanayana aan jirin shaqaalaha ka shaqeynaya ma jiraan waxa kaaga mid ah biriishkii labaad ee magaalada oo lafdhabartii labaad ee magaalada ah waxa ka mid ah wadadan dheer martiin wadadan Baarsigu ka tahay barasabkii gobolka Togdheer in madaxweynuhu xilliyada ka mid ah uu bedelay isla markaana muddo dooraan madaxweynihii aan xilligaa u soo magacaabin barasabkii gobolka runtii dhaliilo badan baana gobolka ka jira sababtuna waa barasab la'aanta gobolka وبرواقة محمد شبكة عالمي قود وين نيوز مقالة برعو.